nabad saaxiibayaal meel walba maqalkayga idinka soo gaarayo waa qaybtii afraad ee season 2 waxaan kaga hadalnaa barqasigan fursadaha online ka jira iyo sidoo qof walba uga faa'iideysan karo meel walba uu joogo caawa waxay la joogtaa ayaan Diamond oo ah xubin aad u muhiim ah oo ka tirsan company-ga Oblast Global ayaan waxay ka ganacsataa in ka badan 200 oo wadan sidoo kalena fursado badan ayay ka dhalisay internetka dhexdiisa waa hooyo hal abuur badan sameysay sidoo kalena dadaalo fara badan ku bixisay siday u abuurto isbedel dhab ah soo dhawaayaan sida caadadana waa ogtahay ayaan Diamond waayo waa dhawaabaayo ariga aad noo soo hortay si aad uga faa'iideyso ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysan doonta ama ku daawan doonta mar labaad ayaan waa tuma si dad badan wax kaaga ogaadaan mar labaad Maria aad baan ku mahadcelinayaa sharaf bay ii tahay beeshkaaga inaan soo qabsado ayaan waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool wadankan qurbaha gaar ahaan wadanka Canada gaar ahaan gobolka Alberta Edmonton waa hooyo family carruur haysata storygayga oo gaaban waa taas maadaama ayaanad ka mid tahay company caalami oo international ah oo ka shaqeeya in ka badan 200 oo wadan oo qof walbana ka faa'iideysan karo goormaad ku soo biirtay company-ga Oblast Global Mario 2020kii baan ku soo biiray aakhirkeedii maalintaas oo aan ka arkay beeshka snapkayga goojadan dabiiciga Phantom Life halkee ku yaala company-ga Oblast Global maadaama uu yahay company international ah oo intaas oo wadan ka shaqeeya waa muhiim dadku inay ogaadaan company-ga wuxuu ku yaalaa magaalada wadanka Canada gaar ahaan magaalada ay ku soo barbaartay leaderkayga Ifraax Saciid Xasan oo Ottawa waana company jira da'diisu ay jirto 16 sano waxaa la aasaasay 2005tii wuxuu maanta saameyn ku yeeshay 200 oo dal buu saameyn ku yeeshay waxaan dhihi karaa wuxuu ka magac weyn yahay kambaniyada dunida ugu waaweyn oo 40 sano jira ama 80 sano taasna waxaa sababay isbedelka baahsan oo mulkiilaha businesska ugu talagalay inuu socdo maadaama aan ogahay inaad dhaqaale ka samaysay company-gan muddo kooban maxay ahayd sababta ugu weyneed aad company-gan ugu soo biirtay mar labaad iyo mar saddexaad aad baa kugu fursadan qiimaha badan oo aad siisay Mario beeshkaaga haddii aan u soo noqdo ujeedada gulucda businesskayga Oblast Global ujeedadii ama hadafkii aan ka lahaa inuu saameyn igu yeesho company-gan waxay ahayd inaan ilmahayga Ilaahay baa wax badbaadiye u horseedo isbedel dhaqaale si aan uga tilaabsado noloshan adag oo aan la daalaanayo qurbaha taala dabcan hooyo ahaa saameynta qayb baan ka ahaa in dhaqaale xumo ay soo waayo waxaad ku jirtaa bilaadan gacantiis space-kaas ka dhisaya baad leedahay luuqadahan baranaya haddana wali qof bilaadan gacantiisa ku jirta waxaan company-gan aan sababta ugu weyn aan soo galay waxay ahayd inaan helo financial free inaan ka madax bannaanaado qof bilaadan gacantiisa inaan ku jiro aniga aan shaqaysto isbedelkiina waxaan ka arkay Oblast Global isbedel dhaqaalena waan ka sameeyay maasha Allah waxaanu haynaa wax ka duwan alaabaha kale oo dunida caalamkeeda teeda kale company-ga iyagu asaga ayaa isku manufactory wuxuuna sameeyaa alaabo kala duwan sida fashion-ka iyo health-ga iyo waxyaalaha person care-ka loo yaqaano ama skin care-ka ah haddaan u soo gudugalo su'aashan company-gan sidee looga faa'iideysan karaa company-gan waxaa looga faa'iideysan karaa inaad soo qabsatid beeshkayaga waxaanu sameynaa kulamo aan ku casuuno dadka walaalaheena oo dunida dhacladeeda ku nool halkaasoo ay ka daawadaan ama ay ka dheehdaan isbedel dhaqaale dad sameynaya waayo anigoo tiimkayga maanta wuxuu marayaa 2,000 buu marayaa raacda ugu jirna isbedel dhaqaale inaan guri walba gaarsiino maadaama aan health-ga iyo caafimaadka iyo beauty-ga anagu aanu aragnay aad baan ku salaamayaa walaal waxaa jira product aad u saameyn badan runtiina dad badan caawiyay oo healthy adiga gaar ahaan sidee bay ku saameysay coachada Fountain of Life su'aal fiican maalmaha kamid ayaan beeshka snapkayga waxaan ka arkay leaderka gabadha ii noqon doonta oo magaceeda la dhaho Sucaad Maxamed maantana ku nool gudaha Somaliland shalayna deganeyd magaalada Toronto Canada beeshkaas ayaa waxaan ka arkay dad isugu tagay Carab iyo Cajab oo ka hadlaya goojadan runtii goojadan signal bay bixinayeen qof walba wuxuu haystay meel ku cagaha barareen ka dhabar xanuun haysto ku tamaha ka daatay iyo dad ay si gaar ah u saameysay xanuuno badan oo maanta dunida saameeyay
runtii maanan haysan waxaan haystay daal ayroonkaygoo low ahaa hurdadoo iga tagtay dhabar xanuun iyo daal badan iyo awooddayda taalanti oo sii daciifaysa ama miisaankayga hoos u dhacayo maadaama aan ahaa hooyo rabtaa hal waraf inay 10 shambar ku disho oo mas-uuliyadda inta badanna aniga igu soo laabanaysay waxaa ii dheerayd xanuun soomaalidu ay aad u laayay oo dilaa ah oo la dhaho cagaarshow xanuunkaas 3 ayuu u kala baxaa qayb ka mida oo iisii ayaan haysto dhiiggayga laga helay runtiina weli imuuna saamayn laakiin inta badan beerka ayuu saameeyaa ka dabna ilaahay baan ka magan galnay kansar buu isku beddelaa wax daawaana layma siin dhiiggayga ayuu ku jiray maalintii goojadan aan bilaabay baa runtii 6 bilood ka bacdi markaan tegey dhakhtarkaygii waxay dhaheen waxaan ku haynaa good news ayaanay maantay waa ka weynay dhiiggaagii meel uu kaa aaday ma garan karno kadibna waxaan aaminay ilaahay waxaan ahaa qof muslim oo yaqiinta aaminsan mar labaadna waxaan sii aaminay inaan gacanta ku dhigo goojo dabeeci oo phantom life la dhaho oo qof walba oo bini'aadana korkiisa ama insidekiisaba ka sifaynaysa bakteeriyada marka waa guul ummadda u soo hoyatay waxaanu ku talagalnay inaan miis walba saarno oo uga faa'iideyno dad walaalaheenoo dunida maanta ku baahsan oo la daalaa dhacaaya xanuunadan iyo inka badanba daawona may ahayn oo healthy bay ahayd marka aad baa inii salaamaya adiyo beeshkaaga mabaayo dadka macaamiisha iyo dadka kambaniga ku soo biiraya ama raba inay ka ganacsadaan inka badan 200 oo wadan ayaana wax manooga sheegi kartaa fashionka iyo sababtu firiga ku noqday waa mahadsantahay Mario haddii aan dul istaago fashionkayagu waa Fairy iyo Bosch wixii ugu horreeyay businesskeena lagu aasaasayna wuxuu ahaa fashionka haddaan tusaale soo qaato fashionkayagu waa luxury waxaa red carpetka ku mara dadka Mollywood ku jira ama dadka famoska ama dadka lacagleyda sidii Soomaalidu u taqaano fashionkayaga Fairygaana runtii asagoo aan shilin lacag aan ka bixin ayuu soo galay gacantayda waxaana dhihi kala fursaduhu ku soo galayna waa policies-kii la igu talagalay ayaan buuxiyey shuruudii website baan haystaa anigaan leeyahay waxaan la wadaagaa dadka waxaana dhex yaalla dukaankayga alaabta fashionka oo aan ku helo pointi obelisk galopin point la dhaho marka aniga dukaankayga aan bil walba 150 aan kaga adeegto si dukaankayga uu igu sii nagaado waayo tusaale ahaan haddii aan ku siiyo qofka markuu meel furto waxaa laga rabaa kiro iyo wax walba oo lacag kanu kiro ma ahan waxaa lagu yidhi ugu yaraanka adeego dukaankaaga 150 marka aniga fursad bay ii tahay 150kayga dhigtaa ayuu ahaan baa u dhigtaa kadibna sidaa u helo jewelry brand name sida maartay Fairy ama Bosch ayaan ku adeegtaa markay lacagtayda halka ay aruurto kadibna qaarna waan seel gareeyaa qaarna waan ku xaragoodaa rag iyo dumar baan leenahay fashionkeena ma kala dhaco Boschna waa waxaad maalin walba xiran kartid oo u dhaxeeya ilaa $20 ilaa $300 Fairyna wuxuu dhaxeeyaa ilaa $400 ilaa $40 marka waxaa dhihi karaa waa guul soo hoytay ummadda Soomaaliyeed gabar walba wiil walba xaragada uu jecel yahay kadibna dukaankaygan ka dhex adeegtaa aad baa ku salaamaya Mario wuxuun baan u arkay inay ku xiran tahay dadaal iyo juhdi dheeraada inuu ku bixiyo qofka doonaya inuu horumar dhaqaaleed sameeyo ama ka ganacsado suuqa online-ka oo noqday suuq international ah oo qof walba uu ka faa'iideysan karo meel walba uu joogo ayaanay dhaqaale intee lag ayaa laga samayn karaa ganacsigan aad ku jirto ama shirkadda Nobles Global su'aasha Mario weydiisay oo ah businesskaaga meeqa dhaqaalaha laga samayn karaa businesskayga waxaa laga samayn karaa 12 dariiqa dhaqaalaha loo sameystaa oo si professional loo sharaxaa laakiin xagga dhaqaalaha ma lacagta hadaa u soo noqdo waxaad weekii ka samayn kartaa 60,000 baad ka samayn kartaa sanadkiina waxaad ka samayn kartaa ilaa 3 milyan ilaa 4 milyan markii lagu daro vacationkaaga iyo pointiyada ku aruuray waxaad ka samayn kartaa 4 milyan ilaa 3 milyan baad yeerkii ka samayn kartaa weekiina waxaad ka samayn kartaa 60,000 waa marka aan leeyahay waa dhaqaalaha dhaxalgalka ah oo maaragtay aad carruurtaada uga tagi kartid ama faamilkaaga kaa dhaxli karaan taas baa raacdo ugu jirnaa inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed waxaana nooga duwanahay dadka kale ama kambaniyada kale alaabtayada meel walba lagama heli karo sida maaragtay Amazon oo kale sida Alibaba oo kale kambaniyadaas oo kale la tartamayna laakiin anagu alaabtayada anaga un baa gacanta ku haynaa meel kale lagama heli karo customerkayaga iyo teamkayaga heli karo continue ayaanay sidaan ogahay suuqa online-ku uu tiro ballaaran yahay shirkado fara badan baa jira oo online Nobles Global maxay kaga duwan tahay shirkadaha kale ee online-ka kula jira
ma noo sheegi kartaa waxyaabo unique ah ay leedahay Oblas Global? ها walaal waa su'aal fiican oo mudan in laga hadlo waxyaalaha professionalka ah ku nahay horta waxa haysanaa waxyaalaha sida maaragtay kuniga ama fashionka luxury-ga baa haysanaa oo red carpet-ka lagu maro quality-gooduna waa high waxyaalaha kale uga duwanahay kambaniyada kale waanidii hore kuugu sheegay waxa uga duwanahay product waxa haysanaa markaa isticmaashid 9 habeen aad isbedel face arkaysid ama face-kaaga ha noqoto waxa kale uga duwanahay waxaan haynaa shaambooyin good quality rag iyo dumarba oo laga bixiyay waxyaalaha kiimikada oo timaha damage-ka gaarsiiya oo aan dhigi karo hadda dhasho babyga baa loogu qubeyn karaa productiga iyo shaambooyinkayga quality-ga iyo maaragtay siday glass u yihiin waxaan kaloo ka hadli karaa goojadana dabiiciga Phantom Life oo maanta dunida saameysay oo aan u bixinay goojadii mucjisada oo aan daawo ahayn oo healthy ah waxa kaloo uga duwanahay isbedelka dhaqaale iyo sida maaragtay aad ugu shaqaysanaysid maaragtay company-gaan aadan mar walba policies-kaaga aadan ka dhacayn in adiga iska tuurtid maahane waxyaalo badan baa uga duwanaa intaan lagu soo koobi karin hadday tahay quality-ga iyo hadday tahay qaabkan maaragtay productigan loo design gareeyo quruxda iyo quality-ga maaragtay ku jira productiga dhexdooda laga dhexli karo haddaan tusaale ahaan soo qaato cadayga Colgate-ka oo kale waa maaragtay Colgate oo Michael Silver uu ku jiro tusaale ahaan ilmaha yarka markay dhashaan indhahooda waxaa lagu dhibciyaa daawo lagu dhibciyaa qayb uu ka yahay Colgate-keena inuu ku jirto maaragtay Michael Silver-kaas oo haddii haweeney uur la ay laqdo ama ilmo aan la dhahayn tag goobaha sunta lagu baaro waxyaalo badan baa uga duwanaa baayo waa high waa personal care ama safety-ga home-ka waaye qof walba bili aadan u baahan ciyaalkiisa iyo family-kiisa inuu safe gareeyo taas baa uga duwanaa Maria baayo waa maasha Allah waa fursad qof walba u furan ayaana waxa jira mid ka mid ah gulahaaga ugu waaweynaad ka sameysay company-gan Oblas Global waxa jirtay inaad sameysay $10,000 8 week gudahood arrinkaas maxaad nooga sharxin kartaa waa su'aal mudan in maaragtay loo iftiimiyo bulshada Soomaaliyeed special haweenka maanta duruufta la daala dhacaya tusaale ahaan wadankan aan ku noolnahay baraf badan baa ka daa qabow badan baa ka daa baabuurtuna banaankaas yeelaan markaad ilmahaaga diyaarisid waxaad arkaysaa baabuurkaaga iyo buuxa ama damayba ama batarigii ka dhacay daruuftaas ayadoo ay haysato biomal ayaan akoonkayga ama website-kayga dhexdeeda waxaan ka dhex arkay taynta ama every week oo ku soo dhacayo waayo anaga team weyn baan haysanaa iga dhaqaalo badan maanta laakiin aniga hooyanaha haysato 10 ciyaala si fiican ayay ii saameysay muddo 3 bilood lacagtii maana taaban waxa u maleynaya in la igu qaldamay kadibna leaderkayga Sucaad Maxamed oo maanta ku nool gudaha ii sheegtay in anigu leeyahay waxa shaqaystay ay tahay marka isma teamkaaga intaan gaari doona just shaqadii la iiga baahnaa baan qabsaday kadibna waxaa dhacday inaan ku soo iibsado gaari Ford Explorer ah oo 60,000 jooga 10,000 waxaan iska dhigay gaariga fiigiisa iska dhigay oo 0 kuma qaadane lacagtii company-ga ayaan ku gatay waxaan dhigi karaa waa wax ku dayasho mudan company-gaygu waa hadba sidaa u dhigatid wax jiifoo jaq maaha waa sidaa hadba u taabagelisid 0 degan anoo ciyaalkayga la jooga ayaan dadka la wadaagayay kadibna raselkii ii soo dhacay taasoo ahaa marka waa wax lagu farxo gabar walba raadinaysay wiil walba guulahan maanta company-gaygana haddaan raaciyo oo uga duwan yahay kambaniyada kale policies fiican baa loo dhigay waxaanad helaysaa maaragtay dhaqaale dhaxalgala oo haddii xun baan u arkay inay ku xiran tahay dadaal iyo juhdi dheeraad ah inuu ku bixiyo qofka doonaya inuu horumar dhaqaaleed sameeyo ama ka ganacsado suuqa online-ka oo noqday suuq international ah oo qof walba uu ka faa'iideysan karo meel walba uu joogo ma jira ayaanay qofka doonaya inuu horumar dhaqaale sameeyo ama horumar ganacsi uu ka sameeyo suuqa online-ka ama uu company-gan wax badan uu ka ogaado ma jira meelaha aad u tilmaamayso oo aad u sheegi lahayd waa su'aal mudan in laga hadlo abaya wiigiiba waxaa sharaxnaa businesskayga 4 jeer baan sharaxnaa wiigiiba sida maalinta Talaadada Arbacada iyo Jimcaha iyo Sabtidaba waanu sharaxnaa waxaan loo sharaxaa si professional ah waxaa sharaxa
maaragtay liidaro ugu cadcad maanta kambanigayaga oo annaga role model noo ah baa sharaxa waxaana marti noo soo noqotay in ka badan 200 baa marti beeshashkeena soo qabsata markaan linkigayga tuurno ama tusaale ahaan ay naga arkaan meelahaas kadibna way dhageystaa wayna dhuuxaan kadibna qofka riyo ay maskaxdiisa ka dhex guuxayso ama rabo isbedel dhaqaale inuu yoomal ayaan businesskan ka sameeyo annagu gadaal uma noqonayno oo waxaanu haysanaa dad role model oo cadcad maanta oo businesskan ka gaaray heer dhaqaalo iyo waxaanu haysanaa dad caafimaadkooda healthigoodii daruufo la daalaa dhacayay oo markay kambanigan soo galeen ama walaalo kale ooga faa'iideeyeen haysta message qurux badan oo ayna marna gadaal ugu noqonayn waayo waxaa go'aankayga wuxuu ahaa wixii aan aragnay inaanu walaalahay ka qadin waayo bini'aadanku 24 hours wuxuu ku mashquulsan yahay social media bal wax ka bedela inaan keeno oo isbedel dhaqaale baahina maalmahaashaan sharaxnaa qofna wuxuu ku noqdaa qofkii soo casuumay inta badan beeshashkeena linkigeena yaala ama fartiin bay noogu reebi doonaan beeshka YouTube-kaaga baayo ma jiraan wax caqabada oo ka hor yimi markii hawshu bilow ku ahayd ama aad bilaabaysa ganacsigan online-ka maariyo caqabado way jiraan fara badan bay jiraan caqabadu marka hore waxay kaaga imaanaysaa gurigaaga ama bannaankay kaaga imaanaysaa runtii dadku uma arkayn ama faamilkayga maaragtay markii ciyaalkayga laga soo tago ama odageygaba uma arkayn inaan maaragtay waxaan bilaa micno inay yihiin ugu malaynayay laakiin anigu waa aaminsanaa hadaf fog iyo ujeeddo fog baan aan kala waan xabiibsaday aan ka lahaa maaragtay kambaniga Obelisk Globin waxaana aaminsanaa kambaniyada dunida maanta ugu waaweyn sida Chanel oo kale ama Gucci oo kale aabayaashii wax nooguma darin laakiin maanta fursad bay ahayd ilmahayga inaan ugu daray kambani caalami ah Obelisk Globin la dhaho si ilmahaygu maanta ay halkaa dhaqaale dhex uga helaan jaamacadooda isaga bixiyaan wixii ugu soo noqonaya waxay ahaayeen xabeebay gasho codkayga waxay ahaayeen maadaama anigu aan leeyahay kambani skin care oo asna Canadian ah oo aan inta badan dadka uga wacyigeliyo waxyaalaha kiimikada dadku waxay u arkayeen waxaad haysataa kambaniga adiga aan leedahay haddana kambani kale sidee u yeelan kartaa ama wax ugu darsan kartaa marka waxba ma fahansana dadku laakiin anigu gool cad baan lahaa in kambanigaygaan uu dhaqaale u Obelisk Globin baan ka dhex arkaa maantana darajadayda LD1 waaye waxaan rajaynayaa inaan kambanigan heer sare ka gaaro saameyn aan ku yeesho dad badan naftooda sida anigaba naftayda Sucaad ay saameyn ugu yeelateen mar walba oo xasuusto qof walba dunidan joogo qof noloshiisa wax ka bedela ilaahay baa bedelana saameyn buu qof walba ku yeelanaya marka adigana waxa u malayn doonaa xoogaal badan inay haysid marka way iga timaadaa bannaanka iyo gudaha caqabado dhaqaale intee leeg ayaa laga sameyn karaa kambaniga Obelisk Global maadaama uu qofka doonayo inuu ku noolaado xorriyad dhaqaale ama xorriyad teamkiisa uu ku qaadan karo meel walba uu joogo su'aasha Maari weydiisay oo ah businesskaaga meeqa dhaqaale laga sameyn karaa businesskayga waxa laga sameyn karaa 12 dariiqa dhaqaalaha loo sameeystaa oo si professional loo sharaxaa laakiin xagga dhaqaalaha ma lacagta hadda u soo noqdo waxaad weekii ka sameyn kartaa 60,000 baad ka sameyn kartaa sanadkiina waxaad ka sameyn kartaa ilaa 3 milyan ilaa 4 milyan markii lagu daro vacationkaaga iyo pointiyada ku aruuray waxaad ka sameyn kartaa 4 milyan ilaa 3 milyan baad yeerkii ka sameyn kartaa weekiina waxaad ka sameyn kartaa 60,000 waa marka aan leeyahay waa dhaqaalaha dhaxalgalka oo maaragtay aad caruurtaada uga tagi kartid ama faamilkaaga ka dhaxli karaan taas baa raacdo ugu jirnaa inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed waxaana nooga duwanahay dadka kale ama kambaniyada kale alaabtayada meel walba laga heli karo sida maaragtay Amazon oo kale sida Alibaba oo kale kambaniyadaas oo kale la tartamayna laakiin anagu alaabtayada anaga baa gacanta ku hayna meel kale laga heli karo customerkayga iyo teamkayga heli kara yani meel laga la soo xiriiri karo waxaan haystaa Facebook-gayga page-kayga oo ayaan Diamond ah waxaan haystaa Snapchat ay ku qoran tahay baby/ayaan waxaan haystaa YouTube maaragtay oo ah maaragtay dad Diamond Beauty Family baan haystaa meel badan baa social media aan ku leeyahay aan ku baahiyaa isbedel dhaqaale bay dadku igala soo xiriiri karaan Facebook-gayga way igu soo darsan karaan ayaan Diamond
ugu dambeyn maxay tahay talada ama fariinta aad uga tagayso qof walba ku daawan doono ama ku dhageysan doono waxaan uga tagayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel walba oo dunida ay maaragtay dacaladiisa kaga nool yihiin ama beeshka maariya ay ka soo qabsanayaan fursadu waa maalina gaari weydid iyo maalina garan weydid yoomal ayaam company-gan isbedel baa ka dhici doona adigu beeshkeena ma soo qabsanaysaa oo ma rabtaa qof maskaxdiisa riyo ay ka dhex guuxayso riyatii aakhiro waaye waxaanu ku tusi doonaa ama indhahaagu ay ka dhargi doonaan dad ka badan 2,000 oo Soomaaliya oo 30 dal ka ganacsanaya midba midka kale ka marxaati kacayo itus oo itaabsi ah rag iyo dumar hadaa tihiin oo maanta beeshka maariya soo qabsateen isbedel dhaqaale oo ka duwan kambaniyada maanta suuqa yaala tusaale ahaan anigu 100 kambani baan ku soo jabay kii wixii aan raadinay aan ka dhaxelayna wuxuu ahaa Obolis Global yaa maanta fursadda nagala faa'iideysanaya ama yoomal ayaa shaashadaha caalamka inuu naga arka raba oo shalay shay xaaraan waaye oo dhaha alleela maalin baa la isoo bandhiga marka aad baa inii salaamaya waqtigu waa maalin oo adiga ku gooyay maalin aad gooysid waqtigiina idinka iyo sarin idinku gooyo waqtiga ka faa'iideysta meel walba aad joogteen waxaan leeyahay salaamu alaykum idilhaantiin